waxaan maanta safar ku soo gaarnay magaalada Baydhabo ilaah baan nabad keenay taasoo daba socotay safar 5 bari 6 bari ka hor 17 bisha nalaga celiyay hawada dalka Kenya anagoo soo soconay magaaladeena Baydhabo taasoo ay amarkaas bixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la yaab leh wax la cajiibana Xasan Sheekh intuusan hadda markaa labaad madaxweynaha noqon wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ama ugu cabashada badnaa ee diyaarad baa laga celiyay ka cabta inuu maanta wixii ku dhaqmayo oo toddobaad ka badan dadka reer Koonfur Galbeed falaajadii uu ka kansalo annagoo xildhibaanadii deegaanka annagoo hawada ku jirna uu naceliyo waana si darrada dalkan ku dhacday mas'uuliyaddeena madaxweyne Xasan Sheekh baa qaadi doona waxaan kaloo u sheegaynaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee 53 bari ka hartay in dalkan isagoo wada jira oo federaal ah shan maamul goboleed iyo Somaliland oo maqaro laakiin siyaasiyan u joogtay lagu wareejiyay maanta uu ka haysto kaliya magaalada Xamar dhibaatada kala dhacdaa waxay tahay madaxweynihii markuu waqtiga ka dhamaaday la 3 sano dalkan ugu soo sheekeynayay dadka Soomaaliyeed doorasho ku fiican qabanaya hadda isagoo 53 bari ka dib waqtigiisu ka haray inuu isu bedelo hogaamiye kooxeed oo maalin walba degmo hor leh oo Soomaaliyeed oo reer Koonfur Galbeed ay degan yihiin oo raba inuu dadkeeda qaxiyo dagaal ka fuliyo ciidamo ka soo daabulo waliba reerihii reer Koonfur Galbeed uu reer qabiil ugu yeero yaa reer qasaxa yaa reer quraca Koonfur Galbeed maxaa ka dhimi kartaan maxaa u taray kartaan ma dhibaateyn kartaan hub qaata la leeyahay